Assalaamu calaykum asxaabta, waa idin salaamay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego fiidiyogan inuu leeyahay part 1 iyo part 2 insha Allah. Waa inaad la socotaa haddii la yiraahdo part 1 markaad daawatid part 2 na inaad daawataa waxyaabo badan ayaa ka faa'iideysa aadan hore u ogeyn insha Allah haddii la yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي سومالون ملك سادني كجوكتان كسر دواد حياة كيتشن إن شاء الله ما أنت وحنينا وذا سيدا نص مست healthy meal prep كعنتدا عفمات كلام سمست يا ربنا ما أنت دي سوق لي إن شاء الله. قبل بدنا أصحابنا يمروا بودي حياة محمي سانكس كجرد حياة محعنتا إن شاء الله واكنا ما أنت وحان عنا عيان يدين وذا هدو إلى هذا healthy food low fat low carb low calories إن شاء الله low sugar هدو إلى هذا سيدا وسمست لها عيان تساي هدو إلى هذا إلى السعودة أصحابته marka insha Allah asxaabtu waxaan rabaa inaan samaysto breakfast lunch dinner quraac qado casho haddii ilaahay karaali noqdo waa week dhan haddii ilaahay insha Allah yiraahdo waxaan ka bilaabayaa lunchkayga waxaan rabaa inaan samaysto chicken shawarma waxaan rabaa inaan chicken shawarmada aan ka hor bilaabo si aan u marinate gareeyo 1 hour aan talaagada u geliyo cuntadii kale xaajigaygana insha Allah halkii waa idinka sii wadi doona haddii ilaahay nafta nagu simo insha Allah halkan saa aragtaan waxa igu jira waa half a cup oo yogurt waliba yogurtka waa low fat insha Allah haddii ilaahay karaali noqdo inta waxa igu jira waa aragtaan waxa waaye shawarma spicy waxa waaye waa 1 teaspoon waa garlic powder waa 1 tablespoon ginger powder half tablespoon waa sanjabiil shiidan onion powder basal shiidan inta waxa ku jira waxa waaye barbarooni shiidan waa 2 tablespoon insha Allah insha Allah hadana waxaan ku darsanayaa wax yar oo chili basbaas case hadii hadaadan basbaaska aadan cunin iska daa insha Allah waxaan rabaa inaan ku qiyaasto wax yar cusbo inaan qiyaastaan rabaa insha Allah isku soo noqdo wanaagsan asxaabta wax yar black pepper ayaan ku darsanayaa filfil insha Allah intaas aan isku qasaaya haddii ilaahay yiraahdo ila socda asxaabta marka insha Allah asxaabta haddana waxaan sameynaynaa wax yar biyo ayaan ku darayaa kadibna waan walaaqayaa insha Allah maasha Allah haddana waan ka wada soo diyaariyey sidaas ayuu iigu soo baxay shawarma saas haddana asxaabta waa aragtaa halka waxaa yaala waa chicken thigh insha Allah waan gogoyn doonaa si waxaan u jarjari doonaa insha Allah khafiif oo yara dhaadheer insha Allah ila socda insha Allah saas ayaan ku soo wadayaa isku soo noqonaynaa insha Allah asxaabta waa aragtaa waan soo wada googooyay kulligood haddana waa kana shawarma saaskii ayaa waxaan kala soo baxay talaagada waan ku shubayaa insha Allah haddana bacdi ayaan ku xirayaa waa kana asxaabta afka waan ka soo xiray insha Allah haddana talaagada ayaan gelinayaa ila socda haddana waxaa aragtaan halka waxaa yaala waa saamankii insha Allah iyadana san u gogoynaya waa idin tusayaa ila arka saasaan u jarjaray saasaan kusoo wadayaa insha Allah haddana waxaan samaysanayaa haddii ilaahay yiraahdo saamankii saaskii aan ku darsan lahaa ama bararkii hadda waa aragtaan bararka aan haysto wax kasta waa zero calories waa zero cholesterol waa zero fat wuxuuna leeyahay flavorkii bararka caadiga ahaa marka adoo helaayo barar noocaas inaa barar
faadkiisu badan yahay kalorigiisu badan yahay inaad soo qaadatid macna haddii aad doonaysid inaad miisaankaaga iska dhintid. halkaa waxaa iga jira waa 2 tablespoon oo basbaas guduud shiidan, 2 tablespoon oo paprika barbarooni shiidan, 1 tablespoon oo onion powder. haddana waxaan ku darayaa 1 tablespoon oo cusbo ah, filfil ayaan ku darayaa, insha Allah intaas ayaan isku walaaqayaa haddii Ilaahay yiraahdo. aragtaan kalluunka waan soo wada googooyay. haddana insha Allah bararkii ayaan korka marinayaa haddii Ilaahay yiraahdo. insha Allah saas ayaan kusoo wadaaya, waan soo dhamaystiraya insha Allah. haddana saxankii ayaan diyaarsanaya, waxaan ku shubaya wax yar saliid oo olive oo weliba ayadana 0 calories ah. insha Allah kusoo dhameynaya ila socda asxaabta insha Allah. marka waan soo dhameeyay saamankii. haddana waxaan sameynayaa liin dhanaan aan si yar oo khafiif soo googooyay ayaan insha Allah kor ka saarayaa. insha Allah saasaan ku gelinayaa insha Allah ovenka. so ovenka already waan sii preheat gareeyay. insha Allah waxaan gelinayaa almost like 25 ilaa 30 minutes 350 degree ayaan ku daynayaa insha Allah. ila socda asxaabta. insha Allah asxaabta haddana waxaan rabaa inaan insha Allah greenka ama cagaarka sida taqaana aan samaysto khudaarta insha Allah. insha Allah halkaan waxaan ku haystaa wax yar karooto, insha Allah asxaabta waxaan sameynayaa wax yar cusbo iyo filfil iyo olive ayaan ku darayaa insha Allah. ila socda. ما شاء الله أصحابته وان كسو ساري سامن كيسدان ونوغو سو بخاي aragtaan quruxda ما شاء الله waa aragtaan ما شاء الله aad buu bislaaday aad buu wanaagsan yahay insha Allah